qof walba wuxuu hadal hayaa viruska dhawaan ka dilaacay dhulka iyo China ee loo yaqaan coronavirus. Maanta waxaan ka hadli doonaa su'aalooyin ku saabsan coronavirus haddii ay noqoto bukaanada markaa clinic igu weydiiyo iyo haddii ay noqoto asxaabta markaa hababka ay weydiiyaan qaabka aan ugu jawaabo iyo qaabkan u arko aniga ahaan coronavirus khatarta uu leeyahay iyo hababka u faafo iyo sidoo kale indhaha haddii uu saameyn karo iyo in kale. cudurkan coronavirus la yiraahdo ee ka dilaacay China hababkan u arko ayaa ah haddii aan nahay dhaqaatiirka caafimaad ka shaqeeyo inaan u qaadano si serious laakiin ayadoo sidaas jirto walaac badan ay ka muujinayaan dadka ama walwalka badan aniga ahaan ma qabo sababtuna waxay tahay in maaragtay coronavirus-kan midda koowaad faafidda uu faafayo markii laga soo tago lama dhihi karo waa cudur dilaa oo maaragtay dadka dilaya lama dhihi karo article akhriye ayaa sheegaya 81% waa tiro aad u badan tiradaas waa tiro mild ah mild waxa la yiraahdaa iska dhaxaad oo xataa daaweyn uma baahanayo oo qofka hadii uu maaragtay gurigiisa soo iska joogo ayuu xataa ka bogsan karaa tiro aad u kooban oo maaragtay 2% wax ka yar ayaa la sheegay inay aad u daran tahay waliba dadka u dhintay percentage-keeda aad u hooseeya oo xitaa dadka u dhinto waxa la sheegay dadka da'dooda aad u sareyso amaba habjirka difaaca oo aad u mataqaana u liito sida mataqaana cudurrada kaleba ay u dili karaan qofka immune system-kiisa aad u hooseyso marka walaac badan dadka aysan ka qaadin oo maaragtay TV-yada ama news-ka badan ka soo kordhaya wax badan noloshooda walaac uu ka abuuray authority-ga waxyaabaha ka soo baxo kala badana hadii ay tahay CDC WHO kuwaas bas la socdaan oo mataqaana ilgooniha u lahaadaan laakiin news-ka badan iyo hadii ay jirto xataa asxaab badan soo post gareynayso Facebook iyo Twitter-ka hadii jiraan xitaa walaac badan iyo kugu qaban hababka aad ugu hortagi kartid cudurkan ayaa noqonaya in aad gacmaha nadiifisid xilli walba oo aad u dhaqdid sidoo kale hadii ay tahay meel clinic oo kale meel isbitaal oo kale hadii aad joogtid ama meel shaqaba ku dadaal meelaha dadka qof ay gacmo ay tataaban karaan hadii noqoto albaabka meesha laga qabsado oo laga furo miiska dhammaan meelihii mataqaana qofku uu tataaban karo inaad iska nadiifisid xilli walba waa hababka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo arinta aadka noo quseyso ah hababka oo indhaha u saameyn karo ayaa noqonayo ma jirto article gooni ah oo akhriyo oo ku saabsan hababka indhaha u saameyn laakiin hadii aan u fiirino virusyada kale waxaa jirto in uu conjunctivitis oo kale indhaha gaduud oo kale inuu yeelanayo qofka hadii uu clinic oo kale qof indha aad u gaduudan oo kale noogu yimaado hadirtaan wixii ka dambeeyo su'aalooyin la weydiin karo ayaa jiri kara oo ah in dhawaan uu tago Middle East ama China oo kale meelahaas oo kale inuu tagay in la weydiiyo oo maaragtay hadii qof walba oo indha gaduud leh ama conjunctivitis cudurka leeyahay oo viruska calaamadaha lagu yaqaan hadii aragtid meel walba uu taabto service-ka mar walba in la nadiifiyo caadi ahaan anaga clinic ahaan oo indhaha qof walba oo baxo qof kale markuu soo galayo service-ka meel walba taabto waxaan alcohol iyo waxyaabahaas aan ku dhaqnaa oo ku nadiifinaa ilinta qof hadii uu maaragtay uu qabo coronavirus kale cudurka haduu qabo ilintiis hadii qof kale uu gacanta uu ku taabto kale qofka kale oo isha uu ku taabto kale uu ku gudbisiin karaa oo maaragtay isha waa lagu kala qaadi karaa xataa hadii aan u soo qaadano tusaale ahaan waxaa la sheegaa cudurka HIV xataa hadii ilinta la qaado oo microscope la fiiriyo waxaa laga helaa HIV laakiin Chinese-ka fursadda uu qof kale uu gudbi ilaa hadeerta lama hayo oo maaragtay lama helin marka saas ay tahay waliba waxa iska wanaagsan in qofka uu ku dadaalo nadaafadda si uu maaragtay qofka kale uu gudbin calaamadaha uu leeyahay cudurkan ayaa la mid ah hergebka calaamadaha uu leeyahay oo ah inuu qufaco
qandho inay qabato, dhuunta inuu xirmo. So marka haddii aad iska dareentid calaamadahaas, waxaa laga yaabaa inay viruskaas oo kale tahay. Viruskan saa hore u sheegnay dilaa ma ahan oo khatar weyn oo maaragtay ma lahan. Kaliya waxaa samaysaa nasiimo muuji, gurigaaga ku naso, cabitaan badan cab. Waxaa aad ugu taxadirtaa in dadka kale aadan u gudbin oo markaas aa xiratid sanka alaabaa lagu xirto oo qof kale saa ugu gudbin. Meel walba inaadan taaban ku dadaal oo gloves ka qaado oo meel gooniya gurigaaga ka gal. Waxaa laga yaabaa in muddo kadib aad iska adigo xataa u baahanin medical ama dhakhtar aad u tagin inaad iska bogsoontid ayaa laga yaabaa. Haddii markaa ay sii darsato kale qufac oo kale oo aad qandhado kale aad u kacdo, markaa waxaa la xiriirtaa xarumaha caafimaadka sidii lagaga daaweeyo. Marka waxaan idin rajeynayaa dhammaan caafimaad insha Allah. Waa inuu kulan dambe xiiso leh insha Allah.